guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba. Dadka degan gobolka Missouri waxay ka kala yimaadeen wadamo iyo dhaqamo kala duwan. Waxaan leenahay caadooyin iyo caqiidooyin dhowr ah, gaar ahaan caafimaadkeena. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin daawo caadeed in la isku daaweeyo. Dadka kalena waxay aaminsan yihiin in jirrada ilaahigooda qofka ay ugu soo dhaweynayso. Dadka qaar takhtar ayay daryeel ka raadsadaan marka ay xanuunsan yihiin, laakiin waxay maskaxdoodu ku degtaa iyagoo kaalmo weydiista xubno qoyska ka mid ah. Adigu bukaan socod ahaan, sharcigu wuxuu ku siinayaa 8 xuquuq oo muhiim ah. 1. Xulashada takhtarkaaga. Waxaad xaq u leedahay inaad ogaato qofka adiga iyo takhtar iyo kalkaaliso adiga kuu ah, iyo inaad doorato takhtar adiga ku siiyo daryeel caafimaad oo tayo leh. Marmarka qaarkood waxaa dhici karta in ay ku fiiriso ama ku fiiriyo kalkaaliso xirfad ah ama kalkaalisada takhtarka. Kuwan waa xirfadlayaal caafimaad oo loo tababaray, laakiin haddii aad doorbidayso in takhtar aad aragto inaad codsato ayaad xaq u leedahay. Waxaad xaq u leedahay in aad ogaato haddii dadka adiga ku daryeelaya uu yahay qof arday ah, barasho ku jira, ama kuwa la tababarayo. Uma baahna inaad u ogolaato inay ku daaweeyaan ama xitaa in qolka baaritaanka ay soo galaan marka lagu daaweynayo. Number 2. Meel nadiif oo ammaan ah. Waxaad xaq u leedahay in lagugu daweeyo meel nadiif ah oo ammaan ah. Haddii aad qabto wax welwel ah, kalkaalisada ama maareeyaha xafiiska kala hadal. Number 3. Warqadda biilka in la caddeeyo. Waxaad xaq u leedahay inaad hesho nuqdi ah biilka daaweyntaada si marka aad u barato wax lagaa daaweeyey iyo qarashka wax kasta oo lagaaga daaweeyey. Nambarka 4. Asturnaanta. Waxaad xaq u leedahay in si gaar ah aad ula hadasho daryeel bixiyahaaga caafimaadka oo wixii daaweyntaada iyo xogtaada gaarka ah la xiriira. Tan waxay macnaheedu tahay in dadka sida tooska lugta ugu leh daaweyntaada ay heli karaan xogtaada shakhsi iyo daaweyntaada. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay in tan loogu yeero HIPAA, oo macnaheedu yahay xeerka caymiska caafimaadka wareejiska iyo xeerka la xisaabtanka. Tan waa sharci uu dardargeliyey dowladda Mareykanka si xogtaada kuu gaarka ah loo dhowro. Adiguna sidoo kale waxaad xaq u leedahay in lagu akhriyo ama nuqdi lagaa siiyo diiwaangelinta daaweyntaada, iyo in daryeel bixiyahaaga caafimaadka aad weydiisato inay beddelaan wixii qalad ah ee aad ku aragto haddii uu wax qaldan yahay, ku quseyn ama aan dhammaystirnayn. 5. Daryeelka xaaladaada degdega. Waxaad xaq u leedahay in aad si dhaqso ah aad ku hesho daryeel degdeg ah haddii uu ku hayo xanuun ba'an, dhaawac ama xanuun kadis ah ee aad aaminsan tahay in caafimaadkaaga uu halis ku jiro. Waxaad tegi kartaa qolka xaaladda degdega xitaa haddii aadan haysan caymiska caafimaadka ama isla markiiba aadan iska bixin karin lacagta daaweynta. Shaqaalaha isbitaalka qaybta gurmadka degdega dib kuma soo celin karaan, waa inay daryeel ku siiyaan. Number 6. Tixgelin. Waxaad xaq u leedahay in si qadarin iyo tixgelin ah uu kula dhaqmo qof kasta oo daryeel caafimaad ku siinaya.
ma jiri karo qof adiga takoor kugu samayn kara. 7. Wadahadal cad. waxaad xaq u leedahay inaad hesho xog sax ah oo si sahla loo fahmi karo oo ku saabsan xaaladaada caafimaad iyo dalabyada daaweynta ee adiga aad heli karto. haddii aad ku hadasho luqad kale oo aan Ingiriiska ahayn, waxaad xaq u leedahay inaad soo codsato qof turjubaan ah. ma aha in aad isticmaasho oo uu kuu tarjumo cunug yar ama qof qoyskaaga ka tirsan. run ahaantii waxaa wanaagsan inaad hesho turjubaan oo ku hadlaya luqadaada iyo kelmadaha caafimaadka si aad si cad ugu fahamto waxa uu takhtarkaaga ka hadlayo. haddii adiga aadan waxba akhrin karin, aad naafanimo ku hayso, ama ay jiraan wax adiga aadan fahmin, waxaad xaq u leedahay inaad weydiisato kaalmo si aad u fahamto xogta takhtarkaaga uu ku siinayo. 8. Ogolaansho wargelin. waxaad xaq u leedahay in adigu go'aano aad ka gaartid daryeelkaaga caafimaad. waxaad xaq u leedahay inaad weydiisato wixii halis iyo dhibaato iiga imaan kara dalabyada daaweynta ee takhtarkaaga kuu soo bandhigo. daryeel bixiyahaaga caafimaad waa inuu ku siiyaa dhammaan wixii xog ah ee adigu aad weydiisato si go'aan aad uga qaadato daryeelkaaga caafimaadkaaga. tani ayaa waxaa loogu yeeraa ogolaansho ku wargashan. adiguna sidoo kale waxaad xaq u leedahay inaad iska diiddo wixii baaritaan ama daaweyn ah, xitaa haddii diidmada macnaheedu tahay in xaaladaada caafimaad ay ka dari karto ama xitaa haddii aad dhiman karto. waxaad xaq u leedahay in aad doorato shakhsiga adiga kuu gaaraya go'aanada caafimaad goorta adiga aadan go'aan gaari karin. tan ayaa waxaa loogu yeeraa dardaaran ama dardaar hor. waxaa muhiim ah inaad ka fahamto xuquuqdaada daryeelka caafimaadka. ha cabsanin. haddii aadan fahmin, su'aalo weydii si marka aad u gaarto go'aano wanaagsan oo ku saabsan daryeelka caafimaadka ee adiga kuu wanaagsan. wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.